السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين صاحبي دمانتينا meel kastoo aad joogtaan. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaan qaadanaynaa waxa loo yaqaano simple future tense in passive voice. Simple future tense in passive voice ayaan qaadanaynaa. Aad iyo aad waa kii shanaad. Waxa uuna ka hadlaa waxyaabaha future-ka ama mustaqbalka dhici doona ayuu ka sheekeynayaa. qaacidada active-ka iyo midda passive-ka aan ku bilaabayaa. iyadoo active voice waxaan leenahay subject sameeye plus lagu daray will slash shall oo auxiliary verb plus loge verb oo main verb plus lagu daray object oo lagu sameeyay then markii passive tense aanay noqonaysaa object plus will slash shall plus b plus bb plus by plus subject. waxaan qaadanaynaa marka ayadoo active voice aan qaadanaynaa. active voice-ka waxa weeye waa hadalkii oo subjectigiisa banaanka lasoo dhigayo oo aan subjectiga la qarinaynin ayaa active voice la yiraahdaa ama subjectiga laga bilaabayo. I will pay the money, lacagta waan bixin doonaa. The lion libaaxa will chase uu bursan doona the goat ariga. Will he drive the car, isaga gaariga ma kaxayn doona. saddexdaani waxa weeye waa markii active voice ahaan loo hadlayo oo future laga hadlayo waay. passive voice-kana waxa uu noqonayaa the money, lacagtii ugu dambeysay ayaa laga bilaabaya will be paid, waa la bixin doona by me, aniga ayaa bixin doono. badana by me-dani oo kale not compulsory ma aha inaad sheegto haddii aan loo baahnayn markaasi. so iyadu waxa waaye by me-du yacni waa caddayn leh maahane the man will be paid, lacagta waa la bixin doono. waa habka passive-ka loogu talagalay sababta waxaa la diidayaa inaad sheegto qofka wax sameeyey, laakiin waxaa rabta falka inuu dhacay inaad sheegto ayaad doonaysaa. haddii aad doonayso inaad sheegto qofka wax sameeyey waxaad isticmaali kartaa active voice-ka isticmaali kartaa. talabaad wuxuu leeyahay the goat ariga will be chased, waa la bursan doonaa by the lion libaaxa ayaa bursan doono. with the car tan marka will ayaan siinaynaa, laakiin maadaama question ay tahay willta banaanka ayaan keenaynaa. with the car gaariga be driven ma la kaxayn doona by him, isaga ma kaxayn doona. halkan driven hadhiin waa driven. know that marka aad iyo aad baad u mahadsantiin saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanba. waxaan idin leeyahay intaan kulmi doono casharkan kan xigo waxaan idinkaga tegay siyaasiyo nabadgelyo.